السلام عليكم وعن أو وناكسن داودي البرنامج كان عاوة أتكدا ونايسان ألول ميديا وحانو إذين هاينا دعضو نحذن له أو كنا فوايي متكمد أمير هذا ومال قبيسان عالمكا wuxuu ahaa uradka boqorka isu taga imaaraadka carabta wuxuu haystay raaxada nolosha nooc kasta sheekh rashiid bin moxamed bin rashiid al maktuum adduunka inteeda wacan ee magac iyo maamuus leh ayuu alla siiyey waxaa tacliintiisa uu ku qaatay iskuulka wax lagu baro carruurta boqortooyada ingiriiska ee sandhurst أمير رشيد أيا أها أمير كأو عنسن حق عربته وحو قول كسوهوي ياره قارضة إيشيا يارها فرطفولك لبكن يلعدي أمير كان أو يسو أقون صدي إن ويهي بقركا UAE آدمبي أيا سلما فلان وحا لود لافي ولالكي سكير حمدان sababta amiirkani uu ku waayay dhaxaltooyada boqortooyada dalkiisa ayaa warqad qunsulka Mareykanka ee Dubai uu u diray Washington lagu sheegay in ay tahay in amiirku xafiiska boqortooyada ku dilay nin shaqaale u ahaa oo u dhashay dalka Hindiya 2010kii wuxuu amiirku iska casilay xubinnimadii uu ku lahaa gudida ciyaaraha ee Olympicska xilligaas kadib wuxuu ku yaraaday in uu ka soo dhex muuqdo boqortooyada iyo warbaahinta dalkiisa wararka la xidhiidha geeridiisa ayaa sheegay in waqtigii dambe noloshiisa uu amiirku ku mashquulay tumasho iyo isticmaalka maandooriyaha kala duwan waxaa joornaalka Mirror ee ka soo baxa dalka Ingiriiska lagu sheegay in markuu geeriyooday in yar ka hor uu la joogay ugu yaraan 30 dumara dhiiggiisana laga helay khamri iyo daroogo xadaafa wararka ayaa ku daraya in amiirkani isaga oo 33 jir ah uu ku geeriyooday mid ka mid ah guryihiisa waxaa geerida amiirkani ina tusaysa in si kasta aad malqab u tahay haddii aan lagu darin caqli iyo alla ka cabsi in ay ku dambeynayso sharaf darro daawadayaal waa naga intaas fadlan subscribe iyo share nagu taageer si aad uga qayb qaadatid horumarka alool media ilaa iyo xilli dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadqab iyo caafimaad